waxay sukaayo keenay waxyaalaha muuqda ee maanta jira ee cadaalad darrada ah ayaa isukaayo keentay waxaana isukaayo keenay waxaan u sheegayaa Muuse Biixi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inta cadaalad darrada waddanka ka jirta dhammaanteed wax ka qabanayo haddaanu nahay beelaha reer Nuur annagu waxaanu leenahay goob doorashooyinka ugu badan ayaan leenahay loo dareeri maayo waxaan go'aan ku gaadhaynaa ilaa inta cadaalad darra ay jirto cadaalad darrada miiska madaxweynaha taala ilaa inta ay jirto inta aan wax ka arkayno isbeddel ka arkayno goob doorasho looga dareeri maayo beelahayga doorasho looga dareeri maayo doorasho aanan waxban ku helayn oonan mustaqbal ku lahayn oo aanan waxba ku lahayn waxba iiga soo baxayn u dareeri maayo horaan ugu dareeray dee waxba waan ku weynay waxba kama jiraan waa cadaalad darraan ka hadlaynaa waxaa la yidhi islaam baa buul lahayd baa layidhi boqortooyo caraba ayay u muuqatay way dhowrto tagtay waa boqorkiibaa sidaa u eegay baa layidhioo waa la xaadhaa layidhi casarkii bay soo noqotay tiyoo xaaba sidata iyo in yaroo sankora iyo bariis waxay ku noolaanaysay isla markaa meeshiibay oo la xaadhay ayay timid way istaagtay way garan weydayba meeshiiba way garan weyday maxaad eegeegaysaaba lagu yidhi buul halkanaan ku ogaabaan doonayaa bay tiri waa kii la xaadhay bay tiri oo anugu dhowrtan ku maqnaaye ilaahay xagguu ku maqnaa bay tiri tii baan joognaa maanta waa lana xaadhay haddii aannu reer Nuur nahay waa lana xaadhay laakiin allaan leenahay haddaannu dhul lahayn iyo haddaannu magac lahayn iyo haddaannu muuqaal lahaynba jamhuuriyadda Soomaaliland kuma hayno ilaa aan cadaalad arkayno min gobol min xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa gobol ilaa intaan cadaalad ka arkayno ama saami qaybsi ha noqoto ama mid gudaha ha noqoto ama saami qaybsi ha noqoto ama dhul iga maqan ha noqoto intaan cadaalad arkayo een badheedh arkayo gardarro garab og aan arkayo ma uma dareerayo doorasho waxaan maqlayaa in la leeyahay habara waliyo sabaroon ayaa shirka dhacaya taasi annaga waxay nala tahay dadka tashaday ee bari nimanka tashaday ee bari ee tashanaya in lagu xumaynayo awalbaa la shirna ma la yidhaahdo iyadoo waxay yahay maqan yihiin oo naa waxba haynin ya maxaan idinkula shiraa waxaan idinkula shiraa ma jiro cidda shirku uu ka go'ayee lala shiri karaana waa annaga ee samaroon kale loo tallaabsan maayo waayo dee sidaan anagu isku naqaanay haddaan idhaahdo reer dudub iyo reer geedi baan anugu la soo shiray may noqonaysaa noqon maysa adeer marka waxa weeye adeer kolka cadaalad laga run sheego ayaa la shiri doonaa fadhigaasaad fadhi uga noqon sida kale wuxuu yidhi walaalnimadu wada dhowristay dhaaya leedahay kol haddii dhankaa kala loqodo dheeli wow halis buu yidhi kii abwaankii hore waxa weeye waxa dadka deeqaana waa cadaaladda ninka wanaagsanina cidduu ka soo jeeda maahina dadka kale ee boqorka caadilkii dadka kuluna ka soo jeedin buu ururiyaayuu gacanta ku qabtaayo aw soo dhoweeyaa maaha nin baa saca reerka u irmaan iska cabbi jiray oday ahaayoo reer mas-uul ka ahaayoon carruurta waxba ka siin jirin magac buu lahaa haddaad halkii adigu saca irmaan adiguuni aad iska kabato waa nasiib darro waxa weeye war fadhigaa fadhi ha looga noqdo waxaan raacinayaa dadka cadaaladdaa deeqda wadajirkaa deeqa ku tanaasulkaa deeqa waxaan haynaa ma jiro banka
taaka kama ogolin banka taaka kama ogolin ama carabkeen ama ajabikeen taaka kama ogolin hadday kula adiga kula tahay way suuroobina suuroobi mayso dhiilkii buuxaana wuu daataa waad garanaysaa waa kii ahayd riwaayadii dhada la odhan jiray adoo darayaysan gaajo hadduu deeq ilaah ku siiyo haddaad darajiyo xil qaadda daruuraha hadduu ku geeyo dushuu kaa eegayaa ducaa la yaboosadaa kibirka waa lagu dumaado raata miyaadii lowda war shalay uunbay ahayd waxaad meeshaan garanayna joogteen shalay uunbay ahayd intii la xusuustay ahayd in wixii yacnoo aad u talinaysa iyo wixii xumaanaya in laga hor tagay ahayd waxaan ku soo gebagabaynayaa bahasha biyo isaga dar biyo kuma darayside biyo isaga daroo waxyar huwo oo bahasha qayaxan ka daa anu hargeysan ka imiday shalay waxaan u doontay arrimaha gudahaan ku socday waa la ii diiday markhaataan u yeelay intaasoo jeer baa la yidhi ma geli maysid laygu yidhi dee waxaan ogaaday waxani inay sabaabo tahay carruurtaa kolka idaasho laydhaa geedkaasaan degaynaa geedkii kolka la gaadhay qofkii yaraa ku idhaaho abba maanad ka sheegayna ka horaan sheegayaa laydhaa waar kii awrka u haysay wuxuu daayaydu waa beeno waa layna dagayaa waxba ma yaallaan war dadka yaan la lugoyn madaxweyne fadhigaa fadhi uga noqo dadkaaga midee kaa aan sheegayana ha noqon iyo xaajo nin heshay labadaa unbay talooyinku yihiin xaajada nin weyday wakhtiyaal dhexdii amba waan arkay kolkaan geel iyo wax sidaan hoose u qululino geela awr degaankii aanu ku guurnay hadday naga roorsato geela ramadka awrkaan ku diri jirnay waxaa laga yaabaa ninkii lahaa awrkii oo hallu roorsaday lagu dilay kolkuu arko isaguna inuu nin dilu beegsan jiray sidan imaga ka dhacday gobolkan aan sheekadiisa maqlayno ee bariga koonfurta dhuusamareeb gobolkaa cadaado qolba ay sagaal u dilayso oo kale saasoo kale u noqon jiray taa waxaa la yidhi waa xaajo rag weyday xaajo rag heshayna waxaa weeye waxaa iyo wax ka miisaan weyn oo dhacay kolka ninka odaygii uu soo qabtu nabad iyo meesheedii dejiye weeyaan dee anu oday baan hoo in baan u odayahay dee dadka gobolka adna maanta in hargeysa joogtunbaad u oday tahay ama aaqilaad u tahaye laba oday baynu nahay anu madaxweyne iyo salaan madaxweynihi ku odhan sayliina horaan kugu sheegay waxaa weeye laakiin kolkaad iska beddesho dhaqankan iyo sidanaad ku jirto khasab inaan madaxweyne ku idhaa intaad habar awal tahay laakiin anu dee ma garanayo in kuwa adiga kugu meerto kolle in baa kugu meersane inaad dhibtan soo hoynayaanay kugu leeyihiin iyo inaad aduu ku tashanayso anigoon aad u kala hubin laakiin waxaad gashay dee ummaddii somalilan isku wawaabnay bari iyo galbeedba kala kaxaysee habar awal xaggeed u kaxay mooj adaa ogdee taa intaasaan ku dhaafita kale baarlamaanadan iyo dawladahan waan doorashaa dhacaysaad leedihiin annagu goob doorasho oo doorasha ka dhici doontaa ma jiro dadku saami wuxuu lahaa ilaa la helo ilaa aanu hello ma jiro laba xildhibaan oo aad kolkiiba mashkax adigu sudho ood haadkaba ka saarto oo dambe kama soo dooranayna degmooyinkayga taasina waa sidaa muuse waday kuu taalla adigay kuu taalla aanaan oogu talagelin bismillaahi raxmaan raxiim waayo bisinku waxba ma xumeeyo waxbuu hagaajiyaa waxaan la hadlayaa maanta shirka iyagan jaraa'id uu ku saabsan yahay hawlo fara badan oo raggii iga horreeyey ay ka soo hadleen anigu laakiin waxaan ka hadlayaa intay soo kaxaysatay carabtii yaman ka soo qaxday tiri waa iraaqiinoo waxay maalgelinayaan mashruucyada ayay qodanayaan maal gashanayaan
oo adeer Iraaq teediba u taaglaadahay annaga Yementan adnoogu soo labtistay ilantan agaasimaha guud ee maalgashiga ah aan kula taliya adeer waxa weeyaan kulli hablaha il xumeeyo maaha haddaad nin tahay si adag baan kula hadli lahaa laakiin adiga waxaan ku leeyahay adeer mashruucan carabta meesha loogu keentay Yemeniinta dhulka horta in la kala leeyahay ogow mashruuca laftiisana la kala leeyahay daanta la soo tolowday reer Nabi Maxamed adigu adeer ma lihid aabbahaana ma lahayn ragii lahaa wuu joogaa wuu taagan yahay maalgashi baad sheegaysaa taaka kama ogolin annagaana iska leh waa wadan reer nuur leeyahay jibriil abukar ma laha adeer mashruuciina haddaad adigu maalgashi geenaysa haddaad Yemen keenaysa haddaad reer bani Israa'iil keenaysaba daanta idinka oo madax bannaan adeer xaggaagee mashruucyadana kala baro inay laba yihiin oo qolana ay leedahay galbeedka qolo kalena ay bariga leedahay oo jibriil abukar leeyahay adeer xaggiina geeyo annaga xaggayaga ha u soo talaabin waana kula talinayaa waliba waa talo hallo go'in oo lagu soo lugooyay dad baa kulay dabada ka wadee adu dhul lama taqaanid waxba ma ogid nin baa wuxuu bari ka yimid meesha la yiraahdo shabeellaha hoose awdal buu yimid raawdal bishiriyo wuxuu raawdalow adeer nasiib baad yeelateen anaa la iikiin soo bedelay waxaan doonayaa inaad baabuur ii iibisiin buu markiiba dimba dhowrino gabay ku tiriyo wuxuu ku yiri maantana midkiish marasita oo ko ilaba yimide kadinkaba ma soo joogsanaya u sii kari mashruuca ragii laha taagan yahay Yemeniga soo qaxay adeer cid uu sii hayay horta waa la yaabanay dib isku noqoado horta taasi waa taas oo inanta kula talinaya agaasimaha guud ee maalgashiga war cadaalad ma haysid maxkamadihii maaliyadii ciidamadii wax alla wixii oo dhan baad reer ka dhigtay taasina wax laga aqbalayo horta adigu laga aqbalayo meesha laakiin laga aqbalo wadanka rag baa ku nool la soo hay soranin way ku suuro galaysaa dib isugu noqoadigo fadhiga ka kac oo balbuugaaga iyo waraaqaha qoraysa hoose ee Sacad Muuse oo nin dawlad ma noqon karayaadeen Soomaaliland wax la yiraahdo ilaa bari iyo galbeed isku xidhan baad yaa magac lagu sheegi karaa laakiin haddaad Sacad Muuse oo istiri dawlad buu noqonaya ma noqonayo waa Sacad Muuse halkiisii mutagidina xareediyo iyo xagal halka mudagi ha u qaadina dhulka inuu wada leeyahay dhulka rag baa jooga adeer ha u qaadina inuu yahay wax iska maalayacni ah laakiin adiga talada aan ku siinaynaa war dib isugu noqo cadaalada ku noqo maskab qaybsi annagu haddaanu nahay reer nuur waxaanu ka sugaynaa 7 xil oo u sareeyo wasiirkii reer nuur 3 madaxweyne ayaa intii jamhuuriyadda Soomaaliland dhisnayd ka horeeyay 3daba wasiir baan ku lahayn waxaanu kula agaasimayaal maamulayaal baan ku lahayn intiiba waxaad adigu markaad qabsatay argoosi debsi aad adigu kaliya wax lagu sameeyay garan maayo dalku wada horeeray waxaad ku samaysay reer nuur macal wasiirkiisii macal shaqaalihii Soomaaliland waad ka tirtirtay dhammaan taasina wax adiga ku gaarabay noqotayo anigu horta waxba u waaymin haddana waxba u waaymin ilaa aad samayso oo maskabka reer nuur ku lahaa anu miiska dawladda Soomaaliland anu ka helo wax doorasho ah oo goboladayada iyo degmooyinka iyaga iyo goob doorashooyinka iyaga ka dhacaya ma jiraan taana niyad geli waa naga sal waa naga dhab niyad baan ku hadlaynaa waxaan ku leeyahay oo gunaanadaya magaalada Togo Jaale halkay tahay waa la yaqaan Turcaanoodna waa la yaqaan waxaan ku lahayna ma hayno haddaan heli weyno waxaan halka ku lahayn doorashaad sheegaysaa dib isugu ma karo wixii ka dhacaana waa wax adiga ku yaala waxaan nagu sameynay maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh way haddaan nahay beeshan halkan ka hadlaysa dhammaan odayaasha hadlay sida ay u hadleen horta dhammaan isku taabacsanay gaar ahaan waxa weeye haddii aanu nahay odayaasha halkan joogo aan ugu taabacsanay beesha reer nuur ee degan degmada Wajaale tor degmada Wajaale waa degmo aan wadaleeno deganahay oon ka awow deganiin aan ka soo talin jiray maamulka aan magacaan ku lahayn laakiin maanta dawladdan Soomaaliland dad waxay naga dhigtay ajaanib soo galiya maleeyin noqonna mayno waxa sameeyayana dadka aanu walaalaanahay aan jaarka nin dariska na ajibada bokor maaha waa cid kolba cid haysa talada
gaar ahaan maanta waxa u dambeeyey madaxweyne muuse bixi iyo haya de madaxweyne muuse waxaan moodaynaa inuu kuwii hore nooga dhow yahay macna reer galbeed yahay oo cadaalad nooga cadli sameeyo in badan cabashadu way ka soo baxday beelweynta reer nuur iyo halka soo wajaale in ay saamiga ay ku lahayd wajaale rabto anana waan la rabnaa muuse wuxuu gashay kabarka wali ka soo saarin kama soo jawaabin ilaa waxa waad weydeen maanta wuu iga taqadumay tala loo soo noqdana wadani waan sugaynaa dhammaan haddaan nahay deegaanka reer nuur waan sugaynaa wanaaguna wuxuu naga xinaya walaal wada tashi wax walba qorbeeya cadaalad la'aan waxba kuma wanaagsanaadaan cadaalad la'aan waa waxa dawladdii Soomaaliya ee xoog loo yahay ha burburtay inagoo maanta yayaba oo tayar ku taagan luga man ku taagan cadaalad la'aan inaan madaxa ka bilowda Muuse ma aha cadaalad baan ka sugnaa haddaan nahay beelweynta reer nuur